anaga caasimada geynaa qudaarta oo basbaaska kale waxaan hadda geynaa Muqdisho gobolada looga qaadaa yaayada waagi hore waxay ahayd $3 $2 maanta waxay ka maraysaa $7 $8 ayda kala hadlaya suuqa qudaarta ee dabageed ee magaalada Beledweyne halkan dabcan waxa la keenaa si maalinlaha loo keenaa qudaarta kala duwan ee ka baxa gobolada dalka si gaar ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan maalmihii ugu dambeeyay waxa dabcan halka ka jiray sare u kac xoogan dhanka qudaarta iyadoo isla markaana haweenka halka ku ganacsada ee markaas ay sheegeen in sare u kac xoogan ay ka jirtay qudaarta halka lagu iibiyo warbaahinta Shabeelle ayaa maanta fursad u yeeshatay inay ka soo tabiso sare u kac dabcan laga soo tabinayay maalmihii ugu dambeysay suuqan qudaarta dabageed ee magaalada Beledweyne qaar kamid ah haweenka ku ganacsada suuqan qudaarta markaas dabageed ayaa warbaahinta Shabeelle ugu warbixiyay qiimaha qudaarta waqtigan la kala iibsanayo gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan magacaygu waa dhaqan daahiye Ismaan waxaan ka shaqeeyaa suuqa qudaarta ee Beledweyne qudaarta hadda raqiis saa'idana maahan qaali oo mataqaana cirka galayna maaha normal aan qudaarta ku qabnaa alxamdulillah boqolkaas leenta wuxuu joogaa Beledweyne $2 qarahaas aad u jeedaan wuxuu joogaa $1 batiiqan $1 joogaa qaarta wax sarakaca mala wax hoos u dhacana malahan alxamdulillah xilliga hadda lagu jiro markii loo fiiriyo qudaarta aad u wanaagsan tahay anaga caasimada geynaa qudaarta oo basbaaska kale waxaan hadda geynaa Muqdisho gobolada looga qaadaa ilaa Beledweyne ilaa Buurburtay Shabeellada dhexe inta ka dhaxayso maasha Allah marka qudaarta aad u wanaagsan tahay markii laga soo tago Muqdisho ma jira gobolada kale oo arkaysa gobolada kale wixii Beledweyne ka gadoomo bari aad oo dhan geynaa marka waxa laga sheegay qudaarta sare u kaca xoogan gobolka Beledweyne sida marka waran maxaad ugu jawaabaysaa sare u kaca laga sheego waxaan u jawaabaa hadda qudaarta Beledweyne timaado wax sarakaca ma leh naaqusna ma lahan siyaadana ma lahan normal waaye dadka dhan way wada iibsan karaan alxamdulillah qudaarta raqiis oo mantaqaanahay dadka beeraleyda ay dhibaato ay ku qabaan maahan dadka magaaladuna qaali kuma qabaan normal ay ku qabaan yaayada waagi hore waxay ahayd $3 $2 maanta waxay ka maraysaa $7 $8 Beledweyne batiiqo kalood waa $0 kabsartoo kalood waxaan gadaynay awal $0 maanta waxay ka maraysaa $1 lacag iyo $1.20 meelahaas ka dhaxaysaa ay basbaaska Beledweyne wuxuu ka maraa $2 awal wuxuu ahaa $0 gobolkayna gobol fiican waa walaa gobolada aad u doorsan abudwaaq balambal gaalkacyo hargeyso burco meela u rin bambalaleenta yaanyada waxaan rin bambalaha babarooniga salaatada macal kabsartaas u rarnaa wax kale iska day saaxib waa kaas suuqa balka war ma laga iibsadaa marka waa laga iibsadaa anaga nala soo doontaa si wadankan waa qani waxa ka jirta wax dadka reer Beledweyne iibsan karaan qudaarta ma iibsan karaan anagu waa beerahan ka baxday sayna u iibsani waa iibsanaa on ka dharagnaa waliba gobolada kale loo qaadaa sayna anagu waaba ka dharagnay waxaan ka dhargin ma la qaadinayo hadda waa kaas عاصمته وخلنا رواحي لكن فيسكيga si kastaba ahaatee dadka halkan ku sugnaa ayaa markaas uu soo weeyay qiimaha qudaarta xilligan la joogo biirada ka jirta gudaha magaalada Beledweyne sidoo kale xilligan jiidaalka dabcan ay wajahayaan dadka shacabka ee magaalada Beledweyne Ibaan Soobane Daawud TV raadiyo caalamiga Shabeelle suuqa qudaarta magaalada Beledweyne